maanta waa maalintii labaad aan uga hadli doono tiimkan ama qoladan sheeganaysa inay jacayl sameynayaan laakiin aysan wax jacayl aysan sameynayn ee wadaan dhaqan aanan soomaali raad iyo runba aanan lahayn. waxaynu dhihi karnaa dhaqankan waa dhaqan lagu beeri soomaalida dee ayaga keliya maaha soomaalida gudaheeda haddii caasimada la fiiriyo way ka soctaa gobolada way ka soctaa so waxaa waaye soomaaliya muuqaalkan waxaa laga yaabaa inuu noqdo muuqaalkii ugu dambeeya aan idiin soo dubo ama inuu noqdo muuqaalkii ugu horreeyay aan ku bilaabi doono tallaabada soo bandhigidda shirqoolada reer galbeedka. anigu sheekh maahi dee nin maanta oo shahaado caalami watana maahi balse waxaan ahay qof waqtigayga waayaha waay arag ka dhigay waayuhu haddii kugu xumaadaan ogaad waxaa tahay waay arag so marka aniga waxaan ahay qof waay araga dee marka wixii muuqdo aan ka hadlayay ilaa waddankaygii baan joogaa dawaca badankeena aan balasta dadkii lahaa kala yimid ka asta waa kana la jeki raabka nasta dhulka fadhisa haddaba nee gurasta. السلام عليكم أصحاب السوداء ولكن بقركنا وسودان كنا ويدا الاسكو سو نقطة ونقص حديثة ونقصن maanta waa maalintii labaad aan uga hadli doono tiimkan ama qoladan sheeganaysa inay jacayl sameynayaan laakiin aysan wax jacayl aysan sameynayn ee wadaan dhaqan aanan soomaali raad iyo runba aanan lahayn. waxaynu dhihi karnaa dhaqankan waa dhaqan lagu beeri soomaalida dee ayaga keliya maaha soomaalida gudaheeda haddii caasimada la fiiriyo way ka soctaa gobolada way ka soctaa so dhaqan xumada hadda socoto dadkan waxaan dhihi karaa waxay ka yihiin qeyb baaxad weyn ay ka qaataa soo waa dad yacni ay ku dayanayaan kuwii dalkii joogay dee hooyooyinka iyo aabooyinkana waxaa weeyaan kuwo ilmaha biilkooda iyo ilaalintooda iskuma keeni karaa soo hadda hooyooyinka baa shaqeeya oo raggii baa guryaha jooga dee ragga guryaha joogana kuwo waxaa weeyaan oo magaaladooda waxaa waaye kala awqaadkooda iyo balodooda iskaraatida soo raggina aabooyinkana waa la mashquuliyey hooyooyinka waa la mashquuliyey dadkan hadda xaquuqda dumarka ka hadlaya waxaa dad fiiriso dee macnaha ma arkaysid rag kale ku dhahay shaqeyso ama wax qabso waxaad arkaysaa rag kale ku dhahay kaala aan fadhiisan aan jawi galno aan qayb qaadan ama dif qaadan laakiin waxaad arkaysaa dumar yani dumar kale ku dhahaysa kaala shaqeyso ilmaha beelo saan samee meel iska soo saar yani raggii baa hoos loo dhigi oo dumarka baa lasoo qaaday laakiin bulshada ma fahansano oo mashruucaas yaa wada allah ugu aclam aniga ma aqaano qofka wadaa laakiin markaad social media u fiiriso waxa ka socda iyo markaad aragto dhaqanka soomaalida ama nolosha ay ku nool yihiin oo waxaa kaloo jiro qolo kaloo ayakane oo sidaan oo kale wax soo gudbiya aanan jacayl ahayn laakiin jacaylka ka sheekeeya qisooyinkii badanaa u fiiriso qisooyinka marka laga sheekeynayo ama markay dumar hadlayso ama markuu qof yani haween da ay hadlayso ragga bay ka hadlaan maxaa keena in ragga ay noqdaan yani kuwo la ugaarsada qaybna jecel loola sameeyo qaybna la ugaarsado waxaa la ugaarsanayaa ragga yani guryaha leh so waxaad arkaysaa gabdho lagu barbaarinayo yani barbaarin markaa ku dhahayo dee waalid maahan de social media barbaarin waa soo moogi gabadhii qof taageerta ama qof ku xidhan blaya fiirsadaa dee waxay ku barbaarinaysaa mataqaanaa dee waxay ku barbaarinaysaa xaas qaba in ay shukaansadaan oo dee ma aqaan sida dumarka ay u sheekaystaan balse waxyaabaha muuqdo baan ka hadlayaye waxaa waaye soomaaliya muuqaalkan waxaa laga yaabaa inuu noqdo muuqaalkii ugu dambeeya aan idiin soo dubo ama inuu noqdo muuqaalkii ugu horreeyay aan ku bilaabi doono tallaabada soo bandhigidda shirqoolada reer galbeedka. anigu sheekh maahi dee nin maanta oo shahaado caalami watana maahi balse waxaan ahay qof waqtigayga waayaha waay arag ka dhigay waayuhu haddii kugu xumaadaan ogaad waxaa tahay waay arag soo marka aniga waxaan ahay qof waay araga dee marka wixii muuqdo aan ka hadlayay ilaa waddankaygii baan joogaa waxaan ka hadlay waa waddankayga yani celin kara wala aragowdha aadaa idin salaama marka waxaa waaye muuqaalkan ma noqon doono muuqaalka koowaad waxaa waaye waxyaabo badan baan idin iftiinin doonaaye balnoqda kuwii kalsal gaara ee soo saara xogta